السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو برواقو إبراهيم كسر هذا برنامج كينا برارو maanta waxaa marti noogu ah barnaamijkeena soo jeediyay Xudayfi Caydiid kaasoo in badan ku dhex jiray arrimaha wacyigelinta caafimaadka ee bulshada. Mowduuceena maanta waxa uu ku saabsan yahay niyad xumada iyo walwalka ku yimaada dhalmada kadib ama sida u taqaaniin postpartum depression. Ku soo dhawow Xudayfi barnaamijka iyo mowduuceena maanta. waan dhowahay barwaaqo aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan aad igu soo dhaweysay barnaamijka. run ahaantii waa mowduuc aad muhiim u ah in laga hadlo oo taasoo badanaa bulshadeenu ku baraarugsaneen xanuunka lagu magacaabo postpartum depressionka ama suubuqa hooyada inta badan yimaada dhalmada kadib yimaada hooyadu markay dhasho oo xanuun yimaada dhalmada kadib kaasoo la xiriira dhanka maskaxda. waa mowduuc aad muhiim u ah in laga hadlo way bulshaduna aad ugu baraarugsana. hooyada dhalmada kadib waxay la kulmi kartaa isbeddello nafsi ah iyo dareemo kala duwan oo ka mid yihiin sida kuwan haddaan ka hadli doono. kow, dareen murugo ah in lagu arko hooyadii oo qaar badan oo ka mid ah hooyooyinka waxay dareemaan niyad jab, murugo iyo cidlo kuwaasoo sababi kara walwal iyo cabsi joogta ah. taasoo markaa sababi kara walwal iyo cabsi joogta ah oo xitaa ay ka cabsanayaan markaa inay sidee markaa u qaabil lahaayeen ilmaha cusub ee markaa ay dhashay hooyadaasi. way qodobka labaad aan soo oran karo waxaa ka mid ah dhibaatooyinka maskaxda waaweyn inay la kulanto hooyadii. hooyooyinka qaar waxay la kulmaan niyad jab kadib dhalmada oo postpartum depression baa la yiraahdaa oo ah xaalad maskaxeed oo halis ah oo u baahan daaweyn u baahan. hooyadii badanaa waxaad arkaysaa hooyo dayacaad badan ka muuqato oo ninkii xitaa ku canaananayo odageeda ku canaananayo marka qaar xitaa uu saa kusoo furayaba oo xitaa heerku furniin ay gaadhayso anigana way dayacday oo reerkiina uma roona la iskoonaya moogta reerkiina uma roona carruurtiina uma roona dan waxaa dhacaysa in markaa sidaa markaa qoyskaa dhisnayo sidaa ku burburo oo ay ka timaado markaa fahan la-aan markaa aanay fahansanayn oo ayna ku baraarugsanayn raggan markaa inta badan qaba xaasas kale inaanay ku baraarugsanayn baa dhici karaysa taasoo markaa dhibaato ku ah. calaamadaha ay dareemayso haddaan wax yar kaaga taabto barwaaqo waxaa ka mid ah hooyadu waxay dareemi karaysaa murugo ayay dareemaysaa murugo 24 saac taagan oo joogta ah ayay dareemaysaa murugo taagan oo joogta ayay dareemaysaa. waxaa kaloo ay dareemaysaa niyad jab bay dareemaysaa. waxaa kaloo ay dareemaysaa daal joogta ah oo mar walba daal baa haya hooyadii daal bay dareemaysaa. waxaa la geynayaa dhakhtarkaa la geynayaa infection baa haya waxyaalo yar baa lagu sheegayaa se waxaa u badan meesha pointiska loo baahan yahay in la baaro waxa weeye maskaxdeeda in la weydiiyo oo history fiican haddii history fiican hooyada laga qaado camal warbixin fiican hooyada haddii laga qaado waa la ogaan karaya xaaladeeda markaa. waxaa kaloo markaa lagu horkaraya hooyadii xiise la-aan ilmihii aanay xiisaynayn ilmihii ay dhashay iyada markaa ay dhashay baan xiisaynayn xitaa oo dayacaad badan baa lagu arkaya waa sababaha markaa ay qoysasku badan ay ku dumaanba markiiba ninku wuxuu la soo boodaya anigana ma roona carruurtana ma roona marka xaaladdu waxay ka timi waa hooyada maskaxdeedu marka dhibaato kale ma jirto ama gabadha maskaxdeedu baa wax ka yara khaldameen oo xanuunka aan hadda ka hadlaynay postpartum depressionka ayuun baa ku sababay taasna markaa waa calaamadaha noocaas oo lagu harkaraya. waxaa kaloo lagu harkaraya cabsi la xiriirta habka korinta oo hooyadii waxaa laga soo taagayaa dayro badan baa laga soo taagaya camal waxyaalo badan bay ka dayranaysaa ilmahayga miyaan xuli karaya maryan noocaasa misaga waxaasoo dhan helaya odaygu misaga waxaasoo dhan ba qaban karaya misaga waxaan oo dhan ilmaha misaga waxaan oo dhan samayn karaya anigu maxaan u qaban karaya sidee baan ilmahan cusub u korin karaya murugo xaggii ilmaha cusub lagu farxi lahaaba iyadoo cabsi fara badan baaba ka muuqdaba mararka qaar sometimes iyagoo xitaa wuxuuda qarsanaya inay kuuba sheeganaynin ayaa xataa mararka qaar waad ka dareemaysaa cabsi fara badan inay markaa soo wajahday marka taasina markaa waa dhibaato weeye. waayahay maxaa sababi karaya xaaladaha noocan ah? wallahi waxaa sababi karaya su-aashaada ah barwaaqo maxaa sababi karaya xaaladaha noocan ah haddaan markaa su-aashaa ka jawaabo wallahi dhibaatooyinkan waxaa saameyn kara isbeddello hormoonada ku yimaada hooyada hormoonada hooyada jirkeeda isbeddel ku yimaada ayaa keeni karaya. waxaa kaloo keeni karaya caajiska oo kale uu keeni karaya. waxaa kaloo keeni karaya daal xad dhaaf ah oo hooyadu la kulanto oo tusaale ahaan oo kale haddii hooyadii dee gurigii iyo wixii oo dhan iyadu isku hayso oo waxba lagala qaban kari waayo oo hawlihii oo dhan iyada lagu sii wada daayo waxaa dhici karaysa markaa hooyadii inay markaa dhibaatooyinkaas oo kale markaa la kulanto
oo daal fara badan la kulanto daalka fara badan ku dhacay iyadoo markaa uur leh daalka ku dhacaya waxay markaa hadhow sababi karaysaa hooyadii inay xanuunka markaa noocaas postpartum depression ka la kulantaa suurtagal ah iyo waxaa kaloo dhici karaya isbedelka nolol maalmeedkeedu in isbedel ku yimaado camal qaabkii ay u noolay nolol maalmeedkeedu u qaybsan daily life-keena ay u qaybsanaysay hooyadii ayaa waxa ku imaanaya isbedel baa ku imaanaya taasna markaa way keeni karaysaa waxyaabaha kale ee kordhin kara khatarta waxaa ka mid ah kow taariikh hore iyadoo u lahayd camal history hore ama hore ay xanuunka dhibaatooyin maskaxeed ay hooyadan u qabtay xanuuna maskaxeed hore ay hooyadan hore u qabtay taasina markaa way keeni karaysaa waxaa kaloo keeni karaysaa culayska iyo taageero la'aan nolosha qoyska culayskii oo ku fogaada camal culayska ay qaaday hawsha familiga iyo hawsha qoyska iyadoo wax taageero helin waxaa dhici karaysaa raggeena Soomaalida waa taqaanaa waxaa dhici karaysaa hooyinka badanaa ku sii wada daayaan hawsha ama gabadhii hawshii lagu sii wada daayo aan waxba la qaban bas suuqa la iska tago la iska soo sheekaysto hadhow iyaduna halkan iyadoo ku tacaabsan iyadoo xitaa mararka qaar sometimes iyadoo markaa uur leh oo ilmo sida xitaa inay mararka qaar sometimes ay wadooyinka xitaa wax ku gadayso iyadoo gurigii hawsheedana u dheertahay marka taasina waa dhibaato iyaduna isbedelka nololeed ee ku yimaada hooyada iyaduna way keeni karaysaa oo nolosheedii baa isbedel ku imaanaya waayo ilmo cusub baa ku soo biiray ilmo cusub bay sidaa marka isbedel badan baa ku imaanaya hooyadii taasina marka waa dhibaato weyn haye maxaa loo baahan yahay si looga hortago xanuunkan haddaan barwaaqo ka jawaabo su'aashaadan kale ah aad weydiisay aad baad u mahadsantahay waa su'aal aad muhiim u ah maxaa loo baahan yahay si looga hortago xanuunkan waxaa muhiim ah in hooyooyinka la siiyo taageero nafsaani ah oo camal si nafsaani ah oo ay loo taageero oo la dareensiiyo dareen ah in wax walba garabkeeda la taagan yahay garabkeeda gabadhii la taagan yahay wax lala qabanayo la daryeelayo iyadii marka taasina marka waxay ka qayb qaadanaysaa inay xanuunka xitaa haddii ku dhaco inay hoos u dhigto iyo caafimaadna way baahantay caafimaad waliba maskaxeed bay u baahantay in dhakhtar la geeyo psychologist loo geeyo oo camal waxa markaa sin markaa nafsaani ah uu daaweeyo loo sidoo kale in la helo wacyigelin ku saabsan calaamadaha la xiriira niyad jabka iyo xanuunka maskaxda ku dhacay dhalmada kadib postpartum depression loo yaqaan waa in la helaa wacyigelin joogto ah la sameeyaa war waxaa jira xanuun noocaas jira hooyada ku dhici kara inta badan waxaan kula talinayaa dumarka inta badan midwife-ka marka badanaa barta in iyaguna aad u sii darsaan dhinaca mental illness-ka waliba postpartum depression-ka aad u yara darsaan oo hooyadii oo kale markii meesha ka baxayso goobtooda markay ka baxayso ama facility-gooda goobtooda caafimaadka markay ka baxayso inay markaa ragga la socda ama ninkeeda ama xaaskeeda la socda inay markaa u sheegto ay ku tiraahdo xanuun noocaas jira mararka qaar waxaasoo kale dareemi karaysaa calaamada noocaasay dareemi karaysaa marka waa inaad adiguna markaa firo gaara aad u lahaataa taasoo markaa ka caawinaysa waxaa kaloo muhiim ah in la helo caawimaad caafimaad iyo talo caafimaad oo joogta oo talooyin caafimaad in mar walba wiig kastaba hooyadii markii dhasho ka bacdi in wiig kastaba la geeyo dhakhtarka la geeyo waliba dhakhtarka kuwa la xiriira cilmi nafsiga la xiriira iyo kuwa maskaxda la xiriira in la geeyo kuwaasoo markaa talooyin caafimaad markaa ay ka heli karayso taasina markaa waa taa waayahay halkaas ayuu noogu eegyahay mawduuceena maanta aad baad u mahadsan tahay ustaad Xudayfi